asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka idin kula wadaagna sheekooyin kubadda cagta kuwooda ugu xiisaha badan iyo live transfer update waan kusoo qaadan doonaa arrimaha xanta suuqa Yurub ka jiraan fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar saaxiibada joogtadana ugu xiran muuqaalka noo laagareeya waana ku mahadsantiin wanaagga noo muujisin waxaan barnaamijkeena ku bilaabanay English Premier League si rasmi dahar looga rogay waxaana guul ku daafuratay kooxda Arsenal oo laba gool ebar kaga badisnaadiyay Crystal Palace kulan ee safar ahayeen ciyaaryahanka lagu magacaabo Gabriel Martinelli ayaa shabaqa gaaray qaybta hore ciyaarta kubad corner lasoo tuuray ayaa dabcan waxaa madax kusoo celiyay Zinchenko asigaa dabcan sii dhammaystiray saaxiibada qiimaha badan Gunners-ka qaybta hore ciyaarta si qurux badan u ciyaareen markii la isku soo laabtay xoogaa waa lagu adkeeyay Palace bandhig fiican ay sameeyeen laakiin ugu dambeyntii kulankan oo 5 daqiiqo ka harsan waxaa soo gabagabeeyay Bukayo Saka oo darbad xoogan uu dabcan soo gamay waxaa iska dhalishay ciyaaryahanka lagu magacaabo Maguire oo daafac kaga ciyaara Palace waxay kaga dhigan tahay Arsenal guul ay ku daafurteen EPL kulan kuwaad ee badiyeen hogaankan ayaga haatan hayaan sidoo kale tan ciyaarihii baashaalka bandhigii wacnaa ee wadeen ayay haatan EPL ku dabaqeen Arteta kooxda dabcan ku soo bilaabay shaxda waxaa ku jireen labada saxiix kooxda ku cusub Gabriel Jesus iyo sidoo kale Zinchenko si fiican u ciyaareen qaybihii dambe kulankaana waa la bedelay sidoo kalena William Saliba dhanka daafac uu ka ciyaaray bandhig adag ayuu sameeyay saa darteed marka Gunners-ka si high flying ku bilowdeen waxayna gaareen guul qaali ah saaxiibada qiimaha badan Arsenal dabcan guusha ay gaareen waxay kaga dhigantay haatan in waqtigooda ugu fiican ay ku jiraan waliba haatan waxaa u diiwaan gashan tan iyo markii laga soo bilaabay xilli ciyaareedka hore bilaabashadiisa ilaa iminka xilli ciyaareedkan cusub 14 gool ayay dabcan dhaliyeen kubadaha koornooyinka lasoo tuuro ee dabcan madax lala helo waxaa ka badan oo kaliya Liverpool iyo Manchester City oo dabcan u diiwaan gashan tahay 15 gool dhashan kubadaha dabcan koornooyinka lasoo tuuray saaxiibada qiimaha badan Arsenal inkastoo ay badiyeen waxaa jira hal ciwaan wanaagsaneyn oo loo diiwaan gelinaya ninka lagu magacaabo Garnacho Xhaka maadaama uu qaatay calaamada digniinta ah xilli ciyaareedkan asiga bilaab calaamad digniinta qaatay sidoo kale dabcan tan iyo xilli ciyaareedka hore ilaa iminkana ma jira Garnacho Xhaka ciyaaryahanka badan qaadashada digniinta oo wuxuu marayaa 11 jaalo dhinaca kale Garnacho Xhaka waxaa la waayay Arsenal laga soo bilaabay xilli ciyaareedkii 2016-2017 ilaa iminka waa ciyaaryahanka digniinta ugu badan qaatay oo 53 digniin ayaa la siiyay taasi muhiim ah ninkan Swiss ka shaqadiisa qabsaday kooxdiisana wuxuu ka caawiyay guul muhiim inay gaaraan sidoo kale Zinchenko xitaa kulankan si fiican uu ciyaaray qaybta hore ciyaarta 55 jeer ku badda taabtay laba jaanisna uu abuuray sidoo kale goolkay Gunners ku daafurteen asiga caawinteeda lahay overall waxay kaga dhigantay Arsenal habeen qurux badan ay qaateen guulna ay ku daafurteen hogaanka EPL way qabteen shabaqooda way ilaashteen clean sheet-na waa bixeen marka Arsenal soo faaso guud wax kasta waa isugu toosan yihiin sidoo kale xogaha kulankan laga diiwaan gelinaa waxaa qaybkii Arsenal waxaa leeyahay kabtankoodii hore Patrick Vieira meel iska saaray maadaama markii ugu horeysay ka badiyeen xilli ciyaareedka hore kulamada ay la ciyaareen Gunners kooxda Palace guul way ka heli waayeen sidoo kalena saaxiibada qiimaha badan naadiga Gunners waxaa leeyahay bishan dabcan August 2022 waxay ku daafurteen dabcan laba goolna shabaqa way gaarsiiyeen guulna way gaareen laakiin waxaa leeyahay August sanadkii hore Premier League ay ku daafurteen kooxda Gunners hal gool xitaa shabaqa ma aysan gaarsiin waa ka warqabteen sanadka hore shabaqana ma aysan ilaashan marka August hore sidoo ku bilaawdeen hadda ayay dabcan in badan ka fiican yihiin sidoo kale saaxiibada qiimaha badan ugu dambeyntii xogaha Arsenal waxaa dabcan ciwaanka weyn qaadanaya macallin Mikel Arteta oo gaaray guushiisii kontonaad kulamada horyaalka asigoo Arsenal hogaaminaya wuxuuna ku gaaray 98 kulan oo Gunners-ka EPL hogaamiye wuxuu noqday macalinka labaad ugu dhaqsiyaha badan ee kontonkiisa kulan ugu horeysa guuleysto waxaa ka bandhig fiican oo kaliya Arsene Wenger oo ay ku qaadatay 94 kulan inuu ku guuleysto kontonkiisa kulan ee ugu horeysa EPL dhinaca kale ciwaanada Yurub waxay haysatay kooxda FC Bayern Munich waxay ku bilowdeen Bundesliga Jarmalka si waaliya ayagoo safar waxay Eintracht Frankfurt kaga badiyeen 6 gool iyo 1 kulankan Nusdersin goolle ee Bayern ku badiyeen ciwaan kuwaad waxaa qaatay saxiixooda cusub Sadio Mane oo shabaqa gaaray ciyaarta markii maray 29 daqiiqo kubadda caawinteeda la Serge Gnabry balse dabcan goolasha Mane waxaa ka horreeyay ciyaartooyda kale Joshua Kimmich iyo Benjamin Pavard oo shabaqa gaareen isla qaybta ciyaarta Jamal Musiala dabcan shabaqa gaaray Serge Gnabry uu soo gabagabeeyay oo half time kor waxaa lagu nastay Bayern oo 5 gool iyo eber dabcan ku leh kooxda Eintracht Frankfurt ayadoo Thomas Muller laba caawin uu sameeyay halka Gnabry shabaqa uu gaaray caawinna uu sameeyay Manena shabaqa uu gaaray markii la isku soo laab saaxiibada qanbada kooxda Frankfurt waxay la imaadeen gool laakiin ugu dambeyntii kulankan waxaa soo gabagabeeyay Jamal Musiala oo mar kale shabaqa gaaray kubadda caawinteeda Leroy Sane oo ciyaartu waxay ku soo ilaatay dabcan 6 gool iyo 1 Bayern kulanku waana guul waali ah ayay ku daafurteen saaxiibada qiimaha badan Sadio Mane wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay kooxda FC Bayern Munich oo ciyaaray muddo 10 sano kadib oo labadiisa kulan ugu horeysay caalamiga labada kulanba shabaqa gaaro waxaa ugu dambeysay sameeyay Mario Mandzukic xilli ciyaareedkii 2012-2013 markuu Bayern ku cusbay ayuu dabcan labada kulan ugu horeysay shabaqa gaaray Mane waxaa la ogyahay mar dhexdaas dabcan German Super Cup ku shabaqa gaaray haddana gool ay ku daafurtay noloshiisa cusub ee Bundesliga Jarmalka sidoo kale saaxiibada qiimaha badan Bayern waxay meel iska saareen kooxda Frankfurt oo waxaa la leeyahay saaxiibada tan iyo markii laga soo bilaabo xilli ciyaareedkii 2019-2020
waa dabcan ilaa iminka Bayern saddex kulan waxaa ka badisay naadiga Eintracht Frankfurt oo waxaa la dhammaan kooxaha kale Jarmalka naadi dabcan saddex kulan ka badisay ma jirto Eintracht Frankfurt kaliya ka badisay laakiin Frankfurt waxbaa ku dhacay bilaabashada Bundesliga Jarmalka maadaama 6 gool lagu xaqay ayagoo garoonkooda joogaan sidoo kale tan wiilka mustaqbalka fiican Jamal Musiala oo kulankan si qurux badan u ciyaar 2 gool iyo shabaqa gaarsiiyay wuxuuna ahaa ciyaaryahanka Bayern ugu halista badan asigoo 4 darbo on target sameeyay sidaa darteed macna Julian Nagelsmann iyo kooxiisa Bayern difaacashada Bundesliga Jarmalka si waaliyo ku bilowdeen ayagoo 10 sano ugu dambeeyay horyaalkan iska aruursanayeen sidoo kale sheekooyin kale kubadda cagta soo qaadan karna waxaa qaybka ee dabcan English Premier League bilowda waxaa laga bixinaya maalmihii ugu dambeeyay prediction ama saadaal dhammaan shabakadaha kala duwan saadaashiisa marka indhana saaxiibada qiimaha badan dood la'aan Manchester City ayaa dabcan hesho codadka ugu badan sidoo kale tan loo aqoonsaday xilli ciyaareedkan ay difaacan doonto EPL markii la fiiriyo The Mirror oo kale Daily Mail The Sun iyo sidoo kale shabakadaha caanka dabcan ka mid yihiin BBC BT Sport Sky Sport analysis ay sameeyeen dhammaan dabcan khubarada u shaqeynaya ahaan la kuwa qorayaasha ah kuwa ciyaaraha ka faaloodaan iyo commentators waxaa la isku raacay City inay horyaal ku guuleysan doonto sidoo kale tan codka ugu badan labaad waxaa yeeshay kooxda Liverpool waxaa la leeyahay hadii ay in case City mis gareyso kooxda Liverpool ay qaadi karta laakiin overall 70% codadka dhammaan shabakadaha kala duwan Ingiriiska kubadda cagta ka faaloodaan waxay isku raaceen in Man City horyaalka ay difaacan doonto inta kalena fursad ahaan Liverpool ayaa la siiyay sidoo kale waxaa xiiso badan dabcan top 4 prediction la sameeyay saadaasha markii aan shabakadaha kala duwan kulli analysis ku sameeyay waxaa dabcan la isku raacay afartii sanadka hore top 4 gashay inay markaan ku soo laaban doonaan Manchester City Liverpool Spurs iyo Chelsea sidoo kale waxaa la Arsenal iyo Man United shanaad iyo lixaad ayay u dagaalami doonaan haddaba waxaa lagu sareeyay taxliilka marka la fiiriyo saaxiibada qiimaha badan kooxaha qaabka isku hubayeen ciyaartooyda ka tageen iyo duruufaha qabsan karaan inkastoo leeyahay dabcan xilli ciyaareedkan lama saadaalin karo qayaanadiisu wataana siina jiri doonto World Cup-ka la aadayo horyaalka uu dheeryahay ilaa dabyaaqada May uu socon doonaa saa darteed marka Arsenal iyo Man United overall waxay u dagaalamayaan kaalinta afraad inay ku dhameystaan laakiin afartii sanadka hore dabcan boosaska afraad galeen weli soo adag yihiin haddaba aragtidiina ka dhib saadaasha prediction oo la isku raacsan yahay City horyaalkan aan dabcan laga xigin sidoo kale dabcan prediction-ka la leeyahay United iyo Arsenal top 4 u dagaalami doonaan walow leeyahay dabcan Janiska ku gali karaan kaalin afraad aad ay u adag tahay saaxiibada qiimaha badan ciwaanada kale kubadda cagta soo qaadan karna waxaa qaybkii waan ka xunnay ciyaaraanka ku ciyaara kooxda kubadda cagta Leicester City lagu magacaabo Ricardo Pereira waxaa shaaca laga qaaday 6 bilood garoomada inuu ka maqnaan doono wuxuuna u baahan yahay qalliin kadib markii jilibku ka dhaawacmay saa darteed waxay kaga dhigan tahay kooxda Rangers oo hogaamiya xaaladooda ma qumano Harvey Barnes ayaa dabcan ka maqnaan toddobaadada ugu soo folle haddana waxaa ku biiray ciyaaraanka lagu magacaabo dabcan Ricardo Pereira taas oo ay ka dhigan tahay Leicester oo xilli ciyaareedkan suuqgal fiican sameyn dhaqaale xumo haysato ciyaartooyda qaarkood in la iibiyo qasab ay tahay haddana xaaladda waxaa kaga sii daray Ricardo Pereira oo dhaawac kala gaaray ninkan saaxiib u dhaawac noqday waana dhaawac marar kala duwan ku maqnaay haddana dabcan dhaawac kale u galay sida rasmiga shaac laga qaaday sidoo kale ciwaanada ugu dambeeyay transferkan soo qaadan kana markaan eegno waxaa qaybkee West Ham United gacanta ku soo dhigan ciyaaraanka lagu magacaabo Maxwell Cornet oo ay ka soo qaateen naadiga Burnley waxayna ku wareejiyeen 17.5 milyan oo pound ama ku dhawaad 20 milyan oo euro 25 jirkan garbaha ka duulna wuxuu qalin ku duuga 5 sano contract wuxuuna caawin doonaa kooxda David Moyes hogaamiyo oo dabcan suuqgal wanaagsan sameeyay West Ham United sanadii ugu dambeeyay English Premier League way ka dhex muuqdeen ciyaaraha Yurub xilli ciyaareedkan waxay soo gaareen semifinalaha Europa League haddana wuxuu doonayaa David Moyes xilli ciyaareedkan bilowday in kooxiisa dabcan bandhiga ay sameeyaan sanadii ugu dambeeyay bandhig ka sareeya ee la imaadaan sidoo kale ninkii Christian Benteke Liverpool wuxuu aaday dhankaas DC United Manchester League ka dhacay waqooyiga America oo aaday wuxuuna ka tagay kooxda Crystal Palace waa wariyaankii hore ee dabcan Liverpool iyo Aston Villa hadda wuxuu toos u aaday dhankaas waqooyiga America Palace oo macsalaameeyeen marka Benteke si official loo soo bandhigay waqooyiga America ayay u qaraab doontay waxaan kaloo soo qaadan karnaa saaxiibada qiimaha badan sheekooyinka dabcan rasmiga qaybka Oscar asigana wuxuu si toos ugu biiray kooxda kubadda cagta ee Flamengo sida rasmiga shaaca laga qaaday ciyaaryahankan saaxiibada qiimaha kasoo tagay dhankaas kooxda Shanghai SIBG ama gudaha China oo uu joogo sanadii ugu dambeeyay waana dabcan ku basameeyay hore ee kooxda Chelsea Oscar hadda wuxuu ku laabtay gudaha Brazil wuxuuna sheegay inuu gudaha Brazil ciyaaraha ku dhameysan doono marka waa rasmi Flamengo ayagana waxay soo bandhigeen Oscar oo ay gacanta ku soo dhigeen sidoo kale ciwaanada transferka ugu dambeeyay waxaa qayb ka ah shabakada Sport ee daabaca Memphis Depay inuu diyaar u yahay ku biiritaan kooxda Juventus ciyaaryahankan Barcelona uu ka soo tagay sidoo kale warbixintan waxaa lagu lifaaqay kooxda Juventus Memphis Depay marka hore ama ay ku qaadanaysa maadaama qandaraaska Barcelona uu kula jiro 2 sano ka harsan tahay haddii uu anfacana xagaga dambe toos iibsan doona marka Barcelona haddii laga dulqaado culayska Depay diyaar u yahay maadaama kooxdan waqti uu hayo oo qasab ay ku tahay ciyaartooyda dhawaan ay soo qaatay in loo diiwaan geliyo Depayna asigana uu aqbalay dhankaas Juventus inuu ku biiro guud ahaan barnaamijka kula wadaagna sheekooyin kubadda cagta kuwada wixii xiisaha badnaa iyo soccer live transfer update intaas nooga egyahay fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saara waana ku mahadsantihiin daawashadiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu